shacabka ku dhaqan magaalada Mooyaale oo SRTV u waramay ayaa sheegay in magaalada Mooyaale muddadii 4 sano ahayd uu ka hirgalay kobac iyo koritaan magaalanimo sida warbixintan inoogu soo diray wariyaheena Bashiir Cabaas kobaca iyo koriinka magaalanimo oo ah mid marba ka dambeysay soo taraya taniya muddadii 4 sano ahayd ee la soo dhaafay shacabka ku dhaqan magaalada Mooyaale ee gobolka Daawo warbaahinta dowladda deegaanka Soomaalida SRTV u waramay ayaa sheegay in magaalada Mooyaale muddadii 4 sano ahayd ee la soo dhaafay isbedelku ka hirgalay deegaanka Soomaalida uu kobcay koriinka magaaladu soo tarayo muddooyinkii u dambeeyay waxaana waqti xaadirkan socda isla markaasina la bilaabay biyo-gelinta magaalada oo muddo 4 bilood lagu soo gabagabayn doono sidoo kale leedgelinta wadada laamiga ayaa iyana dhawaan mid la dhameystiray isla markaasina qayb ka kobaca iyo koriinka magaalanimo shacabka magaalada Mooyaale ayaa xukuumadda dowladda deegaanka Soomaalida waxay ka codsadeen in magaalada adeega qorshaagaha master baleenka balaarin lagu sameeyo maadaama ay magaaladu kobcayso oo ay jirto xaafadowna adeega qorshaagaha uu gaarin waxa kale oo intaas ku dareen isla markaasina codsadeen in biyo-gelinta magaalada Mooyaale ee Ceelgoof oo waqti xaadirkan hawsheedii la bilaabay muddo kooban lagu soo gabagabeeyo maadaama shacabku baahi weyn u qabaan runtii horta soo isbedel ku dhacay alxamdulillah nabadgelyada horta aad ba hadda u wanaagsan tahay shacabku xiriirkooda labada dhinac Oromia iyo dhinaca Soomaaliya si fiican baa loo wada xiriiray waxaana ku mahadsan maamulka sare madaxweynaha ilaa kuwa qabalaha degmada jooga ay ku mahadsan tahay yaabahan xasuuso qaar kale horay waan soo sheegay dhinaca nabadgelyadan ka xasuusta dhinaca hadda dhinaca isdhexgalka bulshadan ka xasuusta leerkan hadda magaaladan habeenkii iyo maalin ay isku furantay leergelintan oo runtii lagu guuleystay biyaha oo hadda saan noo bilaabay in la noo dhoomeysto hadda aan codsigooda aan daranayno aday kulay soo koobi karo laakiin waxaan oo muuqda dawladnimo noo muuqata hadda u baahanahay horta hadda ka degmo ahaan ama ka gobol ahaan waxaan aad ugu baahanahay biyo biilaan haysta siiba degmada Mooyaale khaasatan biyo waxaan maqalnay kulay in hadda la bilaabay biyo-gelintii waxaan u baahanahay arrimahaas in la noo soo dedejiyo magaaladan mustaqbalin baan u baahantahay hadda siiba qabalaha Barsalaam hadda qof umulay hadda meel la maray wadooyinkaas meelay marayaan malahan dadkaas meelay aad bay jid ugu baahan yihiin magaalada sanadkiiba waxaad arkaysaa dhismo daaro waaweyn oo laga dhisayo taasina waxa u fududeeyay opportunity-ga ama fursadaha yaalla ayaa fududeyn karaa sidaas darteed waxaan u baaqayaa ganacsatada ka soo jeeda gobolka Daawo gaar ahaan degmada Mooyaale inay ka faa'iideystaan fursadaha ganacsiga ee yaalla xuduudda khaasatan degmada Mooyaale maadaama ay fursado fara badan ay jiraan xagga dawladuna inay xukuumadda ay gacan ka geysato maadaama ay fursado fiican ay jiraan inay soo dhawaadaan kana faa'iideystaan dhaqaalihii iyo dhaqaalka ganacsiga ka socda aaga dhinaca kale gudoomiyaha maamulka degmada Mooyaale mudane Bishaar Aadan Kiyaato waanu ku booqanay xafiiskiisa ayaa warbaahinta dowladda deegaanka Soomaalida SRTV u waramay isla markaasina sheegay in biyo-gelinta tuulada Ceelgoof ee magaalada Mooyaale waqti xaadirkan la bilaabay isla markaasina bilo kooban lagu soo gabagabayn doono iyadoo isbedelka guud magaaladu uu si habsami u socdo waa magaalo ganacsi oo meel adana istaraatiiji ku taala marka magaaladaasi baaxadeeduna aad bay u ballaaran tahay kulley ama kobac ama koriinka magaaladuna aad buu u socdaa si xawlina ayuu ku socdaa kobaca magaaladu ama koriinka magaalada kulley bilba ama toddobaadkii ka dambeeyay buu marka kobaceedii sii kordhaya marka ama bilba bishii ka dambeysuma marka dhinaca dhismaha hadii la yiraahdo dhinaca wax siyaabo kale hadii la yiraahdo kobaca magaaladu kulley toddobaadkii ka dambeeyay marka sii koraya ama sii ballaaranaya marka kulley xaaladda kobaca magaaladuna sida ama korniinka magaaladuna sida ayay ahayd dhanka kale kulley magaalada Mooyaale waa magaalo weyn weeyaan waa magaalo aad u ballaaran waxayna xad la leedahay dhanka Oromia saddex degmo ayaan marka xadka la leenahay dhanka Kenya hadii aanu noqdo waxaan xad la leenahay machaaranahay degmada Mooyaale Kenya nabadgelyada hadii aanu soo jeesto kulley Mooyaale waa la yaqaana waa meel aad dhinaca nabadgelyada dhibaato badan ay ka jiri jirtay laakiin saddexdan sano alxamdulillah kulley isbedelku markuu dhacay dadaal fiican baan ka geysanay marka
maamulka dhanka Oromiya iyo annagu intaan isgacan qabsanay waxaanu sameynay marka isku xir baan sameynay dhinaca bulshada qaybaheeda kala duwan marka dhinaca kale haddii aanu noqdo kulley magaalada marka hore leergelin laamiga ma laha marka leergelintii waan dhamaystirnay insha allahu tacaala kulley intaa ilaa adigu 3 kilomitir waan dhamaystirnay marka leerarkan hadda la taago laamiga waan dhamaystirnay dhinaca kale biyagelintan hadda laga sameeyay goof magaalada Mooyaale la biyagelinayna kulley bilow baa ka jira hadda 2 site oo reservoir laga dhisayo marka kaambiyadii waa la sameeyay marka diyaar garow fiican baa ka jira marka message-ka aan gudbinayo waxa weeyaan in qurba joogtada gobolka Daawa iyo cidda daneynaysa deegaankeena Soomaalida cidda daneynaysa inay ka ganacsato ama bulshada u dhalatay gobolka Daawa ama deegaan ahaan deegaanka Soomaalida u dhalatay daneynaysa inay ka ganacsato ama inay ka faa'iideysato cidda daneynaysa inay Mooyaale ku soo dhawaadaan Bashir Abbas Ali warbaahinta deegaanka Soomaalida SRTV Mooyaale munaasabad lagu abaalmarinayay ardayda kaalmaha hore ka gashay dugsiga hoose dhexe ee Ayardaga ayaa lagu